hargeysa magaalada caasimadda oo ah jamhuuriyadda Somaliland in muddo ah waxay naawilaysay qorshayaal muhiim ah oo ay ku noqoto caasimad si xawliya u koraysa isla markaasina dusha uga eeg magaalo naqshad ahaan qurux badan hase yeeshee arrintaasi waxay ka dhutinaysay in caasimaddu aanay lahayn qorshe magaalo oo adduunyadu ay fahmi karto taasina waxay keentay in magaaladan caasimadda ah lagu tilmaamo degmo si aad u ballaaratay oo aan lahayn sumadaha caasimadaha dunida lagu yaqaano gaar ahaanna waxa afka qaraad loo yaqaan master plan taasi oo dhammaystiraysa faanka hargeysa ay ku faani karto inay tahay caasimad buuxda oo dal hogaamisa waa mid ka mid ah magaalooyinka sida aadka ah u koraya ee geeska Afrika hase yeeshee waxa loo baahan yahay inay markaasi hesho nidaam caalami oo waafaqsan caasimadaha geeska waa tubta hadda la hayee waxa ay hargeysa sugaysaa in qorshayaal toosan lagu hago isla markaasina ay hesho wadooyin waaweyn oo ku filan dadka iyo gaadiidka caasimadda isugu yimaada arrintan waxa in muddo ka fakaraysa wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Somaliland oo hadda u qalab qaadatay in magaalooyinka Somaliland ay noqdaan kuwa waafaqsan heerka caalamiga ah ee magaalooyinka mid walbaana ay leedahay sumad u gaar ah oo magaalanimo waxa loo yaqaan master plan iyo sidoo kale urban profile magaaladan hargeysa oo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo ruux ayaa si jaantaar rogana waxa mararka qaar loo qorsheeyaa dhulka beeraha ah iyadoo aanay jirin beer la mid ah beerta kale marka laga hadlayo dhinaca qorsheynta dhowr arrimood oo kala duwan ayaa waxa ay khasbeen hargeysa inay xilligan hesho qorshe magaaleed ama waxa loo yaqaan master plan oo indhaha qaranku ay hayaan intaas ay tahay maanta in la fuliyo si qabyada ay uga baxdo caasimadnimada hargeysa waxaana ugu weyn in beeraha magaalada ku yaalo oo dhammaantood iskhilaafsan qaabka qorsheyntoodu ay noqoto mid isku mid ah oo aanay kala duwanaanin taasina waxaa saamaxaya master plan-ka hadda gacanta lagu hayo ee hargeysa ay dib u qaabeynteeda ku soo ceshanayso waxa kale oo jira in magaaladan oo ah mid iska fiday oo ballaaratay isla markaasina aan lahayn qaab nidaamsan oo habqankaasi uu ka muuqdo oo loo degay si habqana ay meesha ka bixi doonto marka la sameeyo master plan-ka ama qorshe magaaleedka waxaana magaaladu ay si aad ugu fiday si filiqsan afarta jiho iyadoo markaasi aan ku soconin qorshe nidaamsan oo dawladeed waxa kale oo khasab ka dhigaya xilligan in la sameeyo in magaalada hargeysa aanay sinaba u lahayn wadooyin toosan oo isaga gudba jihooyinka kala duwan koonfur ilaa waqooyi bari ilaa galbeed oo dhammaantoodba ah kuwa aanay suurtagal ahayn maanta inaad si toosan uga dhex gudubto magaalada hargeysa waxa kale oo iyaguna lagama maarmaan ka dhigay xilligan in la helo qorshaha magaalada in magaaladu aanay lahayn naqshad guud oo magaalo dhinaca kalena aanay lahayn waxa loo yaqaan sumadda magaalanimada ama urban profile oo hargeysa u gaara waxyaabaha xilligan muhiimka ka dhigay in hargeysa ay hesho master plan ama qorshe magaaleed ayaa waxa ugu weyn masiibadii ka dhacday suuqa waaheen ee markaasi uu ku gubtay hanti aad u tiro badan oo suuqaasi taalay waxaana arrimaha ugu waaweyn ay ahayd in gaadiidka dabdamiska iyo gurmadkuba uu gaari kari waayay gudaha suuqa sababtuna ay tahay in qorsheynta suuqu ay ahayd mid aad u liidata waxa kale oo ka mid ah goldoloolooyinka caasimadda hargeysa ay ka kici weyday ee dad badan ay ku dhaliilaan in magaaladu aanay lahayn goobo furan oo dadweynaha ka dhaxeeya sida goobaha danta guuda ee markaasi ay ku yaalaan goobaha waxbarashada goobaha caafimaadka garoomada ciyaaraha iyo sidoo kale goobo lagu nasto waana mid ka mid ah magac xumooyinka ay hargeysa dhaxashay oo dad badanna ay kaga cabanayaan maadaama hargeysa ay tahay caasimadda qaranka Somaliland ma laha jidad u diyaarsan qaabka caasimadda taasi awgeedna waxaa khasab noqotay in hadda la sameeyo master plan-ka ama qorshe magaaleedka caasimadda hargeysa dad badan waxay isweydiinayaan maxaa laga filan karaa qorshe magaaleedka hargeysa master plan muxuu soo kordhinayaa maxaase iska bedeli doona muuqaalka guud ee caasimadda hargeysa marka la fuliyo nidaamkani arrimaha la filan karo waxaa ka mid ah kow in xaaladda hadda ka jirta magaalada hargeysa ay isbedesho in master plan-ka magaalada hargeysa uu xallin doono caqabadaha dhulka ee maanta haysta magaalada hargeysa waxa uu kor u qaadi doonaa dadka ku nool magaalada oo hab nidaamsan marka loo nidaamiyo kadib dad badan ay magaaladani qaadi doonto nidaamkeeda la hagaajiyay awgeed wuxuu ilaalin doonaa oo markaasi uu hagaajin doonaa deegaanka qorshe magaaleedkani waxa uu ilaalin doonaa deegaanka waxaana caasimadda hargeysa uu ka dhigi doonaa deegaan cagaaran master plan-ka ama qorshe magaaleedka hargeysa wuxuu bedeli doonaa habdhaqanka dhaqaale habnololeedka iyo habdhuleedka 20kii sano ee la soo dhaafay sida jahawareerka u socday master plan-ka hargeysa waxa uu kor u qaadi doonaa kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada waxaana ay noqon doontaa magaalo si macquul ah u koraysa
oo nolosheeduna ay tahay mid ku habboon dadweynaha ku nool inay ku nastaan ku ganacsadaan isla markaasina ay noqoto magaalo ay ku faraxsan yihiin ku noolaanshaheeda. master planku macnihiisu waxa weeyaan qorshaynta iyo habaynta magaalooyinka oo ku salaysan mustaqbal dheer. faa'iidooyin aad u badan uu leeyahay. faa'iidooyinka badan uu leeyahay ugu horeyn waxa ka mid ah in dadka magaalada ku nool ay helaan adeegyadii asaasiga ah ee magaaladaas lahayd oo ay ka mid tahay wadooyin fiican, meelo bannaan oo lagu nasto, meherado fiican ku yaalaan, meelo carruurtooda ku ciyaarto laga helo, in la kala saaro dadku halka saxaafada dadku seexdaan iyo warshadaha matalan qaylada midhan la kala saaro oo magaalada la habeeyo wax weeyaan asaasi oo biyuhu ku jiraan leerku ku jiraan ayay master planku horta mustaqbal dheer habeynaysaa magaalooyinka. in magaaladaasi master planku qorshaheeda ugu daro magaaladaasi in dhaqaalaheedu kabco. dhaqaalaha magaaladu haddaanu kobcinna magaaladaas ma korto. dhaqaalaha magaaladu waxa weyn wadooyin fiican marka la sameeyo, parks la sameeyo, meel dadku maraan la sameeyo, xataa waxay dhib yaraynaysaa meheradihii inay kobcaan oo waxa loogu talagelayaa meelo meheradaha ayaa qudhada kala saaraya, meherada yaryar iyo kuwa waaweyn iyo kuwa xataa warshadaha iyo meelaha bakhaarada iyo gooniba u fidaya. qorshaha master plankan ayaa waxaa ka qayb gali doona kumanaan qof. inta ay socoto hawshan lagu hagaajinayo nidaamka magaalada ee caasimadda Hargeysa waxaa la filayaa inay ka qayb qaataan ilaa 120 howlwadeenno ah oo markaas ay hogaaminayaan injineero iyo shaqaalaha kale ee caadiga ah ee markaasi ka howlgala xarumaha kala duwan ee dawladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud, iyadoo mas'uuliyiinta iyo injineeraduba ay kala socdaan xog ururinta qorshe magaaleedka Hargeysa, xarunta wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta iyo xarunta dawladda hoose intaba. naqshada cusub ee magaalada Hargeysa ay yeelan doonto iyo muuqaalka ka soo bixi doona ayaa dhammaan arrimahaasi waxa kharashkooda bixinaya dawladda Somaliland. mana jirto cid ka qayb qaadanaysa mashruucan dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan, waxaana ay tahay in Somaliland ay markaasi isku tashatay si caasimadeeda ay u hagaajiso oo ay uga dhigto mid ku habboon muuqaal ahaan caasimad umadeed iyo sidoo kale habku noolaanshaheeduna uu yahay mid fudud oo si socodkana sahlaya, deegaankuna uu yahay mid cagaaran oo ku habboon nolosha. ma jiro khubaro ajaaniba, dhammaan dadka ka shaqaynaya injineerada iyo sidoo kale howlwadeenaduba waa muwaadiniinta Somaliland ee markaasi ka shaqaynaya iyagoo adeegsanaya khibradooda iyo aqoontooda oo markaasi ay ku hagaajinayaan naqshada guud ee magaalada iyo qorshe magaaleedka magaalada Hargeysa, iyagoo ay iskaashanayaan dawladda hoose ee caasimadda iyo wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta ee Somaliland. magacaygu waa injineer Cabdixakiin Maxamed Cabdi, howlwadeenada wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta kuwaas oo fuliyay qorshe magaaleedyada ama master planada kala duwanaa ee hore, isla markaana nashqadeeyay qorsheeyayna. farxad gaar ah ayay inaan nashqadeeyo amba aan qorsheyno kadibna aan u sameeyno nashqad iyo qorshe la jaan qaada nashqadaha caalamka laga isticmaalo ee standardka. waxaan naga go'an inaanu qorxino magaalooyinka inta hadhay, qaabayno, qorsheyno, cilmigeygana uga faa'iideyno inta cimrigeyga ka hadhay. waxaan ka mid ahay dhalinyarada wax ku baratay dalka hooyo kana soo baxay jaamacadaha dalka waxaan hore uga soo shaqeeyay master planed hore ay ka mid tahay magaalada Boorama. maantana waxaan diyaar u nahay oo kana shaqadeynay oo shaqadeeda aan dhamaystirnay anagoo cidna u baahan, cidna aan consultant noqon, aanay ka qayb qaadan shaqada oo naga timid dibadda, laakiin ay ka shaqeeyeen dhalinyaradii dalka wax ku baratay sida quruxda badan leh waxaan ku beddelkooda inta wax ku barteen maantana si qurux badan uga celinaya. magaalada Hargeysa ayaa marka la fuliyo qorshe magaaleedkani waxaa mustaqbalka ay isu diyaarinaysaa inay la mid noqoto caasimadaha geeska iyo kuwa dunida ee ku naaloonaya hab qorshe oo fidsan oo muwaadiniintuna ay ku faraxsan yihiin. Hargeysa ayaa waxa hadda ay wajahaysaa qorshe in badan ay naawilaysay oo dad badanna ay ka dhursugayeen.